سم الله وانا قصدو سبكي مني ما سري ردلي سالك ديقي سما قرنكويه الله وسيادي نبدا سوغنو برواقك صور سومالي لن الله وسيادي نبدا سوغنو برواقك صور سومالي لن الله وسيادي نبدا سوغنو برواقك صور سومالي دولها مالية عداني سلطانك جود باشا هبر يونس سلطان محمد حسقاني وفوضة كلا الله سعطاء وفتقة أضياشة وحقرتك عقاشة باشا جامع سياد وحندكو سلامينا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفد بنا سابكي بني لو قبل كسول محمد فارح آذن بنا سابكي سرار بني لو سوري سرادين كلا ينا شوكته oo ku soo biirtay marka hore waxaan idinku waynu soo dhaweynaa wufuuday wasiiro salaadiinay jananow jisi kala lahaada barasaaba waynu soo dhaweynaa marka hore ku soo dhawaada Yogori degmada Yogori salaan kadib iyo soo dhaweyn ka bacdi waa nabad intii hore aad maqasheen deegaanka ama dhulka wax ka dhaceen waxaan ku soo dhaweynayaa barasaabka gobolka Sool Maxamed Faarax Aadan سلب ما بعد سدا قدوميها دقمة يورب الشيء لما نوفد كسعتها دولة ده هي ما هذا إذا ماذا وكلام كريهين وسير كهرمها جوده على محمد العداء وسير كهولها جود علنا كهرنتها كوسا هورسين دقمة يجوري قارهم بيش الشيء سياسة كوسا هورسين أكمل هذا باليه شغالون كأحد حد عين أنا ودي كوسا دويننا وقت بدلنا إنه كان حسن وحندوني أن هذا البنات كان هذا كوسا دويه وفود سيو كلمة دوية إن شاء الله تعالى وبركاته aad baa u mahadsantiin odayaasha deegaanka iyo madaxdaba runtii annagoo aad iyo aad uga xun dhibaatadii ka dhacday aaga kan ama beelahan walaalaha ah waxaanu saaka u soconnaa ilaahay baa mahad lehe inaynaan wax dambe oo dhibaato ahi aanay ka dhicin aaga kan ilaahayna haynala qabto baahanahay inaynu marro dhammaanteen inagoo isku duuban aagagii wax ka dhaceen wixii ciidamo ee meelaha joogayna aynu gacanta ku qabanno si nabadgelyada ay noqoto mid aynu runtii aan gacmaheenna ka baxsanin ama aynaga fara bixin waxaynu ka bilaabi doonnaa halkan haddii la yidhaahdo waxaynu mari doonnaa aaggii ay wax ka dhaceen ama laysku horfadhiyey dhulkii baynu tegi doonnaa odayaasha nala socda ee beelaha ka soo jeeda ay dhibaatadu dhex martay qoladii kale xaggaasaanu ka diray idinkana waxaanu doonayaa xaggan ka gashaan dabeedna meel dhexe aynu isugu nimaadno halkaasoo aynu ku muxuu ahay gorfayn doonno sidii nabadgelyo waarta iyo wixii dhacay looga wada hadli lahaa ama looga heshiin lahaa marka iminkana waynu dhaqaaqi doonnaa si aynu horta u gaadhno meelihii ay wax ka dhaceen labadii odayaalna aynu isugu keenno ayaynu samayn doonaa ilaahayna waxaynu ka baryaynaa ilaahay inaga qaboojiyo beelahan walaalaha ah runtii mid suuragal maaha wax la aqbali karana maaha in maalin walba dadku sidii berigii hore baasaboyda lahaan jiray labadii isa seegaaba ay xabad wadnaha iskaga dhuftaan waa wax la yaaba waa waxa ka fog diinta islaamka inuu haysanno waa wax ka fog nolosheenna talabaadeen la yaabana waxa weeye dhulku waa barwaaqo ilaa kal hore markii aanu nimid waxa mushkilad ah dadkeennu waxay dagaalamaan oo dhibka geystaan iyo dhiigga ilaahay xaarintinimeeyey markii ilaahay barwaaqada siiyo markay abaarta tahay iyo odoluflufka waa dad walaala ah marka waxaan u malaynayaa dee hadday sidan tahay wuxuun baynu heshiin karnaa markaynu odoluflufka iyo gaadhisaarka iyo muxuu ahaye daaqla'aanta ee geelu u ekaado muxuu ahaye geriga waxaan u malaynayaa markaasaynu ilaahay ugu dhownahay ee barwaaqadii ilaahay aynugu mahadnaqi lahayn ee aynu gacmaha kor u taagi lahayn
inaynu ilaahay waa kugu shukri deynaynu taa yeelay inaynu ahno ilaahay iska haysta nimcadaada intaan nagu isdiilnaan sidayda isaga baqtina ilaahay weydiisan kari mayno oo dal fulfiye dhibaato iyo abaar laakiin waxaan leenahay ilaahu qalbigayga soo jeedi ilaahu nimcadaadna siisay kuwii garta ka yeel ilaahu kuwii isku ammaan geliye ka yeel ilaahu kuwad caqliga u soo celisay ka yeel taasaynu maanta ku ducaysanaynaa laakiin waxaynu samaynaynaa waa wax ka fog caadada dadka islaamka ah iyo xataa bini'aadanimada haddaynu reer Soomaaliland nahay waxaynu doonaynaa dabeecadda iska bedela meel la kala qaban maayo saaka dhulkii geelu daaqi jiray ee labada tuulo u dhaxaysay cidla ayay waxa laga yaabaa dadka aagan degan ama dhinaca kala deganin inaanu nin xali gurigiisii seexday aanu jirin ee nin waliba geed iyo dhagax oo ahayd gogol iyo furaash waxaanu doonaynaa inaynu taa ka hortagno inaan dhibaatada ilaahay ina badin imikana hawshii baynu ku dhaqaaqaynaa aad iyo aadna waa u salaamantihiin iyo sidaan imika u kala dhex geli lahayn ciidamadii shalay isku dhacay iyo beelihii isku dhacay inaynu imika dhaqso u dhaqaaqno oo arrintaa horta aynu gacanta ku qabanaa waan soo jeedinaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidaa uu wasiirka arrimaha guduhu sheegay socodkayagu wuxuu ahaa dhibkii dhacay ee halkan ka dhacay deegaankan hadda aynu joogno iyo inta ka ogogle runtii inaanu idinku soo gaadhno oo wixii dhacayna aanu dadka uga tacsiidayno wixii hawle taaganna aanu la qaybsanno oo halkaa wixii maanta baaqi ka ah aynu isku soo gaadhno aad baan runtii ugu mahadnaqayaa odayaasha iyo dadka waayeelka ah wixii dhacay shalayta inaan waxba lagu darin oo laga hawlgalo laga shaqeeyo hawsha iyada loo gurmaday aad baan ugu mahadnaqayaa arrinteennuna waxay u noqonaysaa sida hadda wasiirku sheegay dhibku wuxuu ugu yaryahay marba halkaa uu taagan yahay ugu yaryahay in maanta halka ay taagan tahay aanay inagu dhaafin caqligeennu shaqeeyo dadka kan iyo waxay isu yihiin iyo waxa ka dhaxeeya iyada waxba ku tiigaali maayo ku tegi maayo laakiin waxay muhiimadu noqonaysaa in wixii dhibe ina gaadhay labadeena dhinac oo ah dee dad isku qoysa oo isku guri ah inaynu ciddii dhimatayna u tacsiidayno ilaahayna subxana watacaala aynu u weydiino inuu naxariistii janno siiyo wixii dhibe dhacayna sidii aynu markaa looga wada hadli lahayn looga xal lahaa inuu ka wada hadallo dhib dambe inuusan dhicin oo aanay halkaa inagu dhaafin aynu ka tashanno hoggaanna aad idinku u noqotaan intiina halka fadhida odayaashii cuqaashii ku jiraan odayaashii kale ku jiraan oo aad hoggaan u noqotaan dhinaciina haddii ilaahay idmo dhinaca kalena gurmadka intaa la eg baa lagaga jiraa dadkuna iminka waxaad moodaa sida hadda wasiirku sheegayay 2 maalmood gudahood baa dadkii isdhex deganaa ee isdhalay ee is ahaa niba meel ka duulay oo raacdadoodu badatay oo hebel baa maqan la yidhi yacni intaa ku culoobi karo ku kala tegi karana dadkani ma aha waxaynu u baahannahay sidii shalay maahe doraato arrintu ahayd aynu ku soo celinno weliba aynu sida ugu dhaqsaha badan arrintaa iyada uga hawlgallo idinkuna aad nala gurmataano hawsha iyada annaguna inta hawshaasi ay dhammaanayso insha allahu tacaala waa idinla joogi doonaa waa idinkala qayb hawlgeli doonaa marka wanaaggaa inaynu ku wada hawlgallo iyo niyadda wanaagsan wixii dhacayna sida aynu isaga samirsiin lahayn uga sabri lahayn wax dambe oo dhacana aynu uga tashan lahayn insha allahu tacaala intaasay noqonaysaa odayaal ahaan dee idinkaan idinku soo wareejinaynaa kelmaddiina insha allah hore salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa markii aan ka gudbo waxaan sheegayaa marka u horraysa waa nabad waxaad og tahay markuu sheegaa baa layidhi waxaad ogtihiin uunbaa dhacay ha dhaceene annagu haddaannu odayaasha beesha nahay reerka aad maqasheen ee halka aynu isugu nimi ama reer yagoori ama waddadan waxaannu haynaa nabad waana ka shaqaynaynay sidai wax u dhaceen iyo inta ka dambaysay waxaa nebi allowna soo gaadhay ayaanaan jabin buu yidhi haddaad nagu soo gaadheenna waa iyadana waa ugu mahad celinaynaa waxaanu ugu mahad celinaynaa yufuudda intaa la-eg ee nabadda u socota ee inay wax ka qabato oo wax ka gaadho u socota ee isu soo xilqaantay ee u soo kacday hawshii halkaa ka dhacday annagu 4 nin oo lababa meel tahay baanu ogeyn maqashiisannahay dadkuna dad walaala ah oo lababa isla degtay oo isla waxaysantay oo ceel wada cabayso oo guriga wada degtay oo sidaa aba iyay ahayd hawshaasi sidaasay u dhacday
afartaa qof baanu annagu afartaa nin baanu haynaa iyagu si kastaba ha u kala dhinteen wixii kale ilaahina waa u bari nin dhaawacana oo haddeerto xaggana isagana waa la sheegay waanu kaga warhaynay inta kalena calooshayada iyo carabkayaba nabad baanu kaga shaqaynaynay bal horta marka u horraysa haddana waxaanu idinku salaamaynaa nabaddaa aad nagu soo gaadheen inaad wax ka qabataan ibaheeda iyo araggeeda iyo adduunkeedaba wax kaga qabataan hadalka inta aan ugu baxay idinkii adkaynayaa aynu ku ambabaxaynaa xagga odayaal ahaan intaa weeye assalaamu calaykum waraxmatullahi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim wasiirada janannada isimada nooca ay yihiinba guddoomiye gobollada dhammaan mas-uuliyiinta ciidamada iyo warfaafinta odayaasha dhinacan yagoori ee ardaagan dhammaan dadka shirka jooga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan marka ugu horraysa waxaanoo guddoomiyihii degmada raacinaya wasiirada iyo mas-uuliyiintaba waa soo dhowaynaynaa deegaankan yagoori iyo nawaaxigiisa ama gobolka soolba waynu ku soo dhowaynaynaa sidii uu caaqilku sheegay odayaal waxaynii sheegaynaa wax waa dhacan laakiin waxaanu ku tashanay caano qubtaba dabadeed la qabay inaan waxaa wax raacin baan dhinacan ilaa iyo laascaanood ilaa halkan ilaa jiiddii lagaga shaqeeyey amuurtana dee ilaahay baa iska leh oo waxa dhacaya waynu xukumannahay hebel baa yidhi iyo hebel baa yidhi waxaan malakumoodunbaa magacan sheeganaya dadtoodii dhammaatay baa dhacday sababtana dee shayddaan baa iska leh marka nabad baan horta inii sheegaynaa sidii caaqilka inaanu nabad diyaaru nahay inaanu nabad qaadanayno inaanu ogol lahay wax allaale wixii nabadi ku hagaagi lahayd baa ardaaga diyaar looga yahay horta taas waa taa kuna shaqaynaynaa dawladda iyo ehelada iyo dadkan isku dhacayna aanu kula shaqayn doono waxaa la yidhi laba fallaadhood tee lagaa gooyo warta badhida waa dadkan waa dad isdhalay oo wada deganaa ilaa gar adag waa la wada degaya wasir ilaa gar adag ilaa guriga caawa aan joogna geela iyo adhig waa isku dhex jiray masiibadaa unbaa dhacday shayddaan baa ka shaqeeyey laakiin dadku wuxuu ku tashaday deegaankanu inkastoo siyaasada jiraan la rabo in dabka lagu sii qabto dabka siyaasada lagu dhex jiraa oo aan halkan u badnayn laakiin raba inay dabka suu huriyaan waa inii sheegaynaa way jiraan laakiin ma yeelayno diyaarna uma nihin mana dhacaso insha allah ilaahay idamkii taas waa taa shaqada dee waa kala leenahay dawlad baa tihiin waxaad u timaadeen inaad dadkaa kala dhex gashaan inaad nabadaysaan labada raasay isku dhacayna waajibaad bay leeyihiin inay marka hore dadkoodii u tagaan oo ceshadaan oo waansadaan oo la hadlaan dawladduna inay goob kastoo wax ka jira istaagto roolkeeda ka qaadato waxa qula waan saqar ku maqlayey waa inii sheegayaa meelo biyaha laga wada cadi jira baa qola fadhiisatay biyihii inaad furtaan ugu horrayn oo biyihii la wada cabo oo amar ku ridaan ciidamada aad iyo aad baan u ammaanaynaa qaranka iyo ciidanka belayskaba meel kasta oo la isugu tegay way dhex joogaan way kala joogaan warku waa noo socdaa one by one baanu la soconnaa wax dhibaatoo dhacay ma jiro amarka ciidanka waa la qaadanayey haddana dee taliyayaashii iyo wasiirada ciidama maqnaa waxaanu diyaar u nahay nabaddaa inaan xidhno waxaanu diyaar nahay inaanu ka shaqayno annagay dan noo tahay cid aan ugu danaynaynaa ma jirto sidaa farax niyadda geliya haddana waajibka iyagii baan annagu qaadayna haddaa odayaasha ininkaaynu sugayne mar horaanu dhaqaaqi lahay annagoo ka soo bilaabayna ta ugu koonaysa meel kastoo beeluhu joogaan tegayna la hadlayna wacyigelinayna markaan soo dhammayno inunkuna dhinaciinna iyo waajibkeennaa qabsanaysaa marka qolada kalena saa u baxday soo dhammayso goobtaynu ku balno dawladda iyo labada ra'asba halkaasaa insha allah isugu imahayn waana mahadsantihi الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بمحضر سبحانه وتعالى مروا بين الله محمد قضايا واجبة مركز بعد
kolley waxaynu isugu nimi oo nuu soconay dhibaatadaa dhacday xasan baa hadalkii sheegay oo dhameeyey wuxuu yidhi malakulmowdunbaa marba magac sheeganaya gabay carbeed baa wuxuu ahaa mutacadidaat alasbaab walmowtu waaxidun mowdku waa mid qulahun asbaabtun baa kala duwan hadii goorna dhaqankeenna waxaa dadka waxa nool baa loo taliyaa aad iyo aad baan idinku ammaanaya hadalkii halkan ka jeediseen hadal gobeed baa ka jeediseen kii laydinku yaqaanay baa ka jeediseen salaadiintii kolley halkan markii anaa laga magacaabay salaadiin badan baa socotee reerka aqoontaan isu leenay baa lay magacaabay wax kaloo gaarana ma ahayn iyo xaruntaydii halkana ilaahay waxaan baryayaa inuu nabadgelyada inala qabto oo ay inoo xidhanto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wafdiga uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland markii ay kulamo kala duwan oo nabad raadina la soo yeesheen odayaasha iyo waxgaradka iyo cuqaasha kuwaas oo ay kula kulmeen deegaanka Yagori ayaa waxay u soo ambabixeen geesta kale oo ay ku sugan yihiin deegaanka Doclaha oo ay ku sugan yihiin beesha kale ee ay diritu ka dhaxayso waxa arintani ay hordhac u tahay nabad raadinta laga aslaaxinayo beelaha walaalaha ee deegaanka wada degaa halkan joogno waa Docli caaqil waa docoshii weeye waa meesha barwaaqadu ku jirto waa meesha falkii ugu horeeyay shaqaaqadii aanu u soo baxnay waftigii wasiirku hogaaminayay ay ka dhacday saaka waxaanu ku horeynay Yagori waxaanu soo marnay beesha jaamac siyaad cuqaashoodii iyo odayadoodii oo sidaa TV-yada ka arki doontaan nabad qaatay waarta hadda waxaana la jooga beeshii Saacad Yoonis Caaqil Yuusuf baa dhinaca fadhiya oqaal kale joogta oo xildhibaanna jooga odayaashii oo dhan baa jooga waxaan aad iyo aad alfa marra u mahadnaqayaa raggaas ay shaqaaqadaas kala gaadhay sida sharafta leh maamuusnimada iyo milgaha iyo ciziga leh u qaatay nabadda ay ku dhawaaqeen halkan ka maqli doonaan nabad lamid ah saakati lamid ah halkan aad ka maqli doontaan ilaahay oo wax loogu mahadnaqo ay tahay ilaahay baa alxamdulillah isaga ayaa mahad leh isaga ayaa suurtageliyay wax walba ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee naga soo horeeyay ee meel kasta oo ay wax ka dhaceen joogay generaaladii xukumayay haday booliis tahay iyo haday military tahay labadii janba ay nala socdaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxa mahad leh run ahaantii ilaahay ka sokow iyo ciidamada qaranka waa uqaasha iyo ragga maanta salaadiinta ah ee xagga naga soo raacay السلطان محمد حرسقاني كجيرو السلطان سعيد كجيرو السلطان عرب كجيرو تعال رجع وجاسكي وكجيرو رجعس صقدي دحه نلاي maxaan ku rahdaa aanu telefoon intaan u dirnay aanu waan dhaqaaqayna laakiin ma haddu xoogeedu wuxuu saaran yahay ilaahay ka sokow waa uqaasha labada reerood iyo ragga hal doorka ah ee labada reerood anaga iyo wasiirka dakhliga Cali Waran Cade iyo wasiir Ahmed wasiir dawlaha wax iyo wasiir Cabdirasaaq may waxaan ka hadlayaa saddexdayada hore iyo xildhibaanadaas waa markii labaad aanu eeriyadeen beeshan aanu nimi markii horena si gobanimo ku jirto oo cisle ayay runtii noo aqbaleen noona qaateen maantana waxaan naga qayb galay wasiir Cabdirasaaq Khaliif wasiirka hawlaha guud runtii xagaana aad iyo aad uga shaqeeyay anigu waxaan kaga baxayaa ilaahay baa mahad leh aad baan ugu mahadnaqayaa ragga halkan isugu yimi title kasta ay leeyihiin ama caaqil ha noqdo ama nin hal door ha noqdo ama raggaas ama xildhibaan ha noqdo ilaahay dooyada sharfo wana sharafteena assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh ilaahay baa mahad leh waxaan marka hore u mahadnaqaynaa ilaahay mar labaadka waxaan u mahadnaqaynaa labada beelood ee aanu midna imika la joogno midna saaka soo maray ee walaalaha ah ee shaqaaqada iyo dhibku dhex maray oo runtii aan aad uga xumahay labada maalmood intii gaadhay labada beelood
iyadoo ay jilaal tahay iyadoo ay biyuhu yar yihiin iyadoo oon dadku guurguuri karin inaan arkay ama aanu aragnay guryo laga guuray oo xaasaska iyo dhibaatada iyo sanina uu diidayo in dadka caynka isku ah ee isku degaanka ah ee dhaleeyada ah in waxaasoo kale ay dhex maraan waxaanu ilaahay uga baryaynaa kuwii ku dhintay ku naf waayena ilaahay naxariistii janno siiyo samir iyo iimaanna ka siiyo qoysaskii ay ka dhinteen wixii dhaawacana ilaahay muxuu ahaayey uga dhigo nabar gardarro oo ilaahay shifo siiyo runtii maalin dhaweyta anigoo hargeysa jooga ayaa nin odayo caaqilaba ii soo galay oo beeshiisa iyo beel kale halkan waqooyiga xeebta ay isku yar hayaan dabeedna mala 3 goor buu igu soo noqo wuxuu warina waracdo dhagaada kida marka bari waxa ka dhacaanba waa bariga la yiraahdo wuu joogaa saacad ka bacdi maxaa dhacay buu yiri anigu 3 cashaan kugu soo noqday waxaan ku yiri saaxiib qoladeena reer galbeedku qorihii waateen iska dhignay ninka u badan baasturad buu sitaa laakiin walaalaheena barigu wali boobayaashii cuslaa ayaa guryaha yaala marka haddana inta waagu bariga aanan ka gaalin degamta isu joogsanaya bahalka hadii la isku furo waxa la yaabo in meesh ku gaadhayna haddaynu maalin laba sugna ma jirto waxa weeye hadii alla yiraahdo insha Allah sidii aynu masiibada bahalka uga nabadgeli lahayn waynu ka shaqayn doonaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa labada beelood naga ogolaaday inay xabad joojin iyo nabadii wixii dhacayna laga dawqaato oo laga wada hadlo ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxaan inoogu ducaynayaa in ilaahay bogeena burcad isu mariyo in ilaahay naga soo furto kulaylka iyo abaaraha inaynaan noqon kuwa marka ilaahay nimcada siiyo ninba ninka u dhow uu toorida la gaado si aan ilaahay nooga cadhoonin waxaan idiin soo jeedinayaa walaalayaalow sida marka abaaraha iyo odolfulfku jira ay isu jeceshihiin ee aydan sida isu eegin ee aan wax dhibaatii jirin inay markay nimcada ilaahayna siiyana waan garanay ilaa sanadka hore markii saddexaad yaani ninka waan u garaabay 5 bilood baan joogaa waa markii saddexaad ee qadiyad caynkan oo kale aan u imaado ilaahayna fududeeyo marka waxaan leeyahay tolbaatihiin walaalaatihiin candhe iyo caanaheed baatihiin haysu quurina waxyaabaha khatarta ee gacanta ku haysaan ee aad ka dhaxasheen sidii muxuu ahaayay cadawiyadii hore iyo markii dalkan la xoreeyay gacantiina galay inaydan tolkiin aydan u quurin ayaan idin soo jeedinayaa aad iyo aadna waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu siirada iyo jananada xildhibaanada iyo salaadiinta iyo ugaasiyada intaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi halka kan deegaan joognaa galabta waa doclihii waa meeshii shaqaaqada ay ka bilaabantay maantana waxaa alxamdulilah rabbilcaalamiin intaasoo dee somalilan ahoo intaasoo ciidana iyo intaasoo dhan baa isugu timi nabadgelyadii dee khatarka gaadhay waa laga hortegey xabad joojin baa la kala qaatay xabad joojin ka bacdina haddii dee hadal furmo nabadgelyana waa furantaa laakiin maanta tan aanu halka kan annagu ku joojinnay waa xabad joojin dawladda mahad ka tirsanayaana waa jiraan beelahan isku dhacayba imanka marka waxaan hadalkii kaga baxayaa maanta kulankan aanu qaadannay waa xabad joojin tallaabada xigtana ilaahay baa dee keeni doona in nabad iyo sidii kuwii hore ay wasiirada iyo dawladdu wax uga qabteen in ay uga qabtaan way dhici kartaa laakiin taanu annagu maanta ku ballan qaadaynaa ee aanu u sheegaynaa ciidamadan aanu halka kan hadeerto ugu tagnay inaan cid lagu duulo iyo cid xabad lagu ridaa midna inaana joogin hawshaana dadkii ku shaqo lahaa loo daayo oo ay soo gebagabeeyaan intaasaan kaga baxaya assalaamu calaykum ku dhintay oo meel la isku qabtay bay ahayd meel dhibaato ka socotay ay ahayd ciidamadii baa ilaahay keenay Soomaaliland baa ilaahay keenay iyo wasiiradii iyo salaadiin fara badan nabadgelya lagu soo gaaray waana la joogtay dhibtii nabadgelyadiina anagu oqaashay odayaasha haddaanu hay beelaha waanu qaadanay xabad joojin baa lagu ballamay arrintuu dee arrin dhibaato ah oo degdega bay ahayd xabad joojin baa lagu ballamay wixii baaqaya ee haddii rabaxumaya dadka loo dhammaystirkiisa dhibaatada dhammaystirkeedana
waa loo ballamay oo loo kala tegi maayo iyadana waa loo fadhiyaa sidaa ayaa muhadiin ay ka nabadgelyo maxamed wa ala ali sayyidina maxamed way salaamayeen wufuuda iyo cuqaasha iyo salaadiinta wasiirada ciidamada qalabka sida warbaahinta aad iyo aad baan u salaamayaa salaan kadib mahad ilaahay baa leh ilaahayga ina waafajiyey ee ina ku simay shaqaaqadii dhacday dhimashadii inaanu waxba ina kaga darin intii hore dhacday ee na soo gaarsiiyey baa mahad leh mahad labaad waxa leh ciidamada qaranka ee soo gurmaday ee kala joojiyey ee ku dhex jiray ee qorraxda u taagnaa ee dhaxanta u taagnaa ayaa mahad leh mahadda labaad waxa leh gobollada ugu dhowaaya sida ay Saraare ka mid tahay ee yimi ee u hoyday ayaa mahadda kale waxa leh labada beelood ee walaalaha ah ee gacantu kala gaadhay ee shaydaanku ka shaqeeyay ee aqbalay inay xabadda joojiyaan ee maanta halka kana aan qaybtii ugu horeeyay ku gabagabeeyay ayaa mahad leh naxdin bay inoo tahay waxay inoo tahay naxdin maalin walba in dadkeenu isku dhaco anigu halkan aan iminka taagnahay ee duclaha aniga iyo salaadiin kale waxaanu taagnayn jimcihii hore wacyigelin baanu ku jirnay nasiib darro dil baa ka dhacay markaanu ka tagnay waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaanba walaalayaal nabadgelyadaan ilaalino dawladda iyo shicibba assalaamu calaykum waraxmatullahi حرم سم الله وانا قصدو سبكي مني